بسم الله الرحمن الرحيم وصبح نمت هذا سجالك بشا ديسمبر سنة كلبكون لباتن يشن أو كوبهجن سديد يتبنك بشا جباد الآخر سنة كن أفر بقول أفرتن يتضبا تاريخ الهجرية كسو دوادا مركله هي برامجكي ولا شدا ورركا قضبدا ساك برامجك عن إذي كوها إننا وحا كمدا السودان أو ديار جروبيسة جهة دجال أو عصب ودنka bariya kadib markii Ethiopia la sheegay in ay martigelisay ciidamo RSF ka tirsan xerooyin ay ka samaysteen gudaha dalka Ethiopia sirdoonka wadankaasi ayaa la sheegayaa inay gacan siinayaan RSF iyadoo ay ka qayb qaadanayaan hawlaha abaabulka dalal shisheeye iyo kooxo calooshad oo shaqaystayaalaha mas'uuliyiintii dowladda Yemen ee caalamku aqoonsanaa oo isaga baxaya magaalada Cadan kadib markii ciidanka Imaaraadka uu taageerayo ay la wareegeen gobolka Xadramut iyo deegaano kale tani waxay u muuqanaysaa in kooxda Imaaraadka uu taageerayo ee gooni goosadka doonaysa ay jabisay dhinacii Sacuudiga uu taageerayay Israa'iil oo xalay weerar qasaare sababay iyo waliba dhimasho dhaawac ka geysatay Mareykanka Gaza Mareykankuna wuxuu dadaal xooggan ku bixinayaa qabashada shir saddex goosood ah oo iskugu yimaadaan Trump Sisi iyo Netanyahu dhamaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada waada ah marka la daawadayaan si aad ula socoto oo hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka saaka waxaynu ku bilaabaynaa war weyn oo uga sii daraya dagaalka wadanka Suudaan ka socda xalay intii la socotay barnaamijka qubanaha waxaan idin soo gudbinay ciidamada militariga ee uu hogaamiyo General Abdul Fattah al-Burhan oo isaga baxay xaruntii ugu weyneed ee shidaalka lagu qodayay ee wadankaasi Suudaan gaar ahaan gobolka Kordofan kadib markii ay soo ruqaansadeen ciidamada RSF hadda arrintu waxa la leeyahay Ethiopia gudaheeda ayaa waxa saligay military ka samaystay RSF arrintan oo dagaalka iyo xaaladda uga sadari karta waliba waxa la leeyahay arrintan waxa ku lug leh dalal shisheeye iyo calooshad oo shaqaystayaal aynu eegno warbixin u daabacay telefishinka Al Jazeera militariga dalka Suudaan ayaa u diyaar garoobaya jiha cusub oo dagaal oo dhanka bariya kadib markii Ethiopia lagu eedeeyay inay ogolaatay furitaanka xero tababar oo ay isticmaalaan ciidamada gurmadka degdega ah ee RSF iyo dagaalyahano shisheeye oo laga soo daabulayo gobollo kala duwan waxaana la sheegayaa in la geynayo niilka buluuga marka la tababaro gaar ahaan gobolka xuduudda la leh Ethiopia sidan waxa u xaqiijiyay telefishinka Al Jazeera ilo wareed ka tirsan dowladda wadanka Suudaan ilo wareedka oo codsaday in magacooda aan la shaacin ayaa waxay sheegeen in Ethiopia ay samaysay abaabul military oo ay la leedahay RSF iyadoo loo marayo quwado goboleed oo taageeraya kooxda isla markaasna la isla gartay bixinta sahayda dhismaha xeryaha tababarka diyaarinta garoomada yoorneed isla ilowraadku waxay sheegeen in dhaqdhaqaaqyada sahayda gaar ahaan gaadiidka dagaalka nidaamka madaafiicda qalabka carqaladeynta isgaarsiintu la sheegayo in ay ka soo bilaabanayaan magaalada Asusa ee gobolka Benishangul Gumus ee dalkaasi Ethiopia halkaasi oo ay xuduud wadaagaan gobolka Niilka Buluuga ah ee Suudaan gobolka Benishangulka waa gobolka ku yaala Ethiopia waxaana halkaasi ka dhisan biyo-xireenka weyn ee Ethiopia ila wareedyo kale oo dowladda Suudaan ku dhow ayaa waxay sheegeen in uu jiro isdhaafsi dhanka sirdoonka oo u dhaxeeya ciidamada Ethiopia ciidamada RSF iyo ciidamada dadweynaha ee garabka militariga SPLMN ee uu hogaamiyo Joseph Tuko ciidamadiisu waxay ku sugan yihiin aaga ku yaal xadka niilka buluuga ah iyo niilka sare ee koonfurta Suudaan warbaahin u dhow dowladda Suudaan ayaa waxa intaasi ku dartay in xerada tababarka RSF ee Ethiopia ay qaado 10,000 oo dagaalamayaal ah waxaana kormeeraya General Getachew Godina oo la shaqaynaya saraakiil shisheeye dagaalyahanadaasi waxa la sheegayaa in ay ka mid yihiin calooshad oo shaqaystayaal ka kala yimid Suudaanta Koonfureed iyo Latin America gaar ahaan Colombia
iyo xubno RSF ah oo ka baxsaday furimaha hore ee dagaalka Suudaan. Qabiirada arrimaha militariga iyo kuwa siyaasadda ayaa waxay ka digayaan in tillaabadani ay muujinayso khatar weyn oo keeni karta in dagaalka Suudaan uu gudbo weji cusub oo khatar ah isla markaasna ku faafi kara gobolka oo idil. waaye arrinta marka aan dul istaagno sida muuqata Abiy Ahmed wuxuu taageeraya RSF xiriir fiicanna wuxuu leeyahay dhanka Imaaraadka sida ilo wareedyadu xaqiijinayaan. waxay kaloo tani ku soo aadaysaa iyadoo toddobaadyo ka hor madaxweynaha Eritrea uu tegay Boorta Suudaan xiriir fiicanna waxay leeyihiin General Al-Burhan. weliba warar waxaa jira sheegaya diyaaradaha dagaalka ee Suudaan qaarkood in la geeyo waddanka Eritrea si haddii duqeyn lala adeegsado ama duqeyn lala beegsado diyaaradaha qaar ay u badbaadaan. marka dagaalkii gobolka waxaad moodaa inuu faafayo. Masar oo kale waxay taageersan tahay General Al-Bashir, laakiin wadamada kale ee dariska ah sida Chad oo kale ama Libya oo kale waxay taageerayaan RSF. halkaasna waxaa ka muuqanaysa sida dowladda Suudaan ay ku eedeynayso Imaaraadka inuu gacan siinayo RSF. Ethiopia Imaaraadkan aad bay iskugu fiican yihiin. marka xaaladda waxaa leeyahay gobolka waxay geli kartaa meel halis ah. wixii ku soo kordha arrimahan iyo jawaabta Ethiopia ay ka bixisa amurtanna waynu arki doonaa. waxaa kaloo xusid mudan Imaaraadka inuu beeninayo dhowr jeer inuu gacan siiyo ciidamada RSF. waa hagaag bal markana aynu eegno xagga Yaman oo xaalad adag ay ka taagan tahay. wararkayagii ugu dambeeyay waxaan idinkugu soo gudbinay ciidamada lagu magacaabo STC ee dhanka koonfureed inay la wareegeen magaalooyin muhiim ah oo ku yaala gobolka Hadramaut iyo weliba sidoo kale gobolka Al-Mahra. hadda waxaa la leeyahay mas'uuliyiintii dowladda caalamku aqoonsanaa ayaa waxay iskaga cararayaan magaalada Cadan. aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee amuurahani. xubno badan oo ka tirsan dowladda caalamku aqoonsan yahay ee Yaman ayaa maalintii shalay ee Isniinta ahayd waxay bilaabeen inay ka baxaan magaalada koonfureed ee Cadan saacado kooban kadib markii ciidanka golaha maamulka kumeel gaarka ah ee koonfureed ee loo yaqaan STC ay isku fidiyeen gobolada bari sida uu xaqiijiyey mas'uul Yamani ah oo xogaal u ah arrintan. inta badan xubnaha dowladda ee u janjeera dhanka STC ayaa ku haray magaalada, laakiin kuwii kale waxaa la sheegayaa inay iskaga baxeen qasriga madaxtooyada. xitaa ciidamadii daacadda u ahaa ilaaladaasi ama ciidamadii ka tirsanaa ilaalada mas'uuliyiintaasi ayaa iyaguna waxay iskaga baxeen gebi ahaanba qasrigii madaxtooyada. waxaana la sheegayaa sidoo kale ciidanka ka baxay magaalada inay ka mid yihiin ciidamada ka amar qaadanaya sida tooska ah madaxweyne Rashaad Al-Calimi oo isagu ah madaxweynaha golaha hogaaminta ee waddanka Yaman. dhinaca kale ilo wareedyo ku sugan dekedaha waddanka Yaman ayaa waxay xaqiijiyeen in dekedaha badankooda ay la wareegeen ciidamada STC. sidoo kale duulimaadkii dayuuradaha ee garoonka Cadan ayaa dib u bilowday ilaa iyo xalay ilaa iyo maanta galankii hore kadib markii hakad kooban uu ku yimid shalay galankii dambe saacado kooban. taasina waxa ugu wacnaabaa la yiri cutubkii Sacuudigu uu halkaasi ku taageerayay inay iskaga baxeen kadib markii ay la wareegeen garoonkii Cadan ciidanka lagu magacaabo STC. arrimahani ayaa waxa imaanayaan iyadoo saameynta ciidamada STC ay sii balaaranayaan maalmihii ugu dambeeyay, gaar ahaan markii ay horumar ka sameeyeen gobolada Hadramaut iyo Al-Mahra ee bariga waddanka Yaman, halkaasi oo ay gacanta ku dhigeen dhul aad u balaaran. toddobaadkii hore STC oo Imaaraadka Carabta uu taageero ayaa si buuxda ula wareegay Hadramaut kadib markii ciidamada Sacuudigu ay taageerayaan si lama filaan ah ay uga baxeen gobolkan shidaalka hodanka ku ah. dowladda Sacuudiga iyo Imaaraadku kama aysan jawaabin xiriiro warbaahintu ay la samaysay. labada dal horay waxay isbahaysi uga ahaayeen dagaalka ka dhanka ah Xuutiyiinta, laakiin markii dambe waxay kala taageereen dhinacyada iskhilaafsan ee gudaha waddanka Yaman. STC oo markii hore qayb ka ahayd isbahaysiga Sacuudiga ayaa hadda waxay ku haminayaan in ay dhistaan maamul gooni goosad ah oo dhanka koonfureed, gaar ahaan magaalada dekedda leh ee Cadan, halkaasi oo dowladda Sacuudigu ay taageerto caalamkuna u aqoonsan yahay ay xarunteeda u ahayd. Yaman waxay u kala go'day laba dowladood
1967 laakiin 1990 ayay midowday markaasi oo cali cabdalla saalax madaxweynaha uu noqday way arrinta markaan dul istaagno ciidamadii markada waxay u muuqatay imaaraadku taageerayay oo ciidamadii la STC inay inta badan la wareegeen wadankii madaxweynaha hadda wuxuu ku sugan yahay wadanka Sacuudiga mas'uuliyiintii kalena shalay ayay baxeen waa intii taageersanayd madaxweynaha al-Caliimi iyo sidoo kale ciidamadii Sacuudiga oo taageerayay laakiin hadda waxa gacanta ku dhigay Xadirmuut garoonkii Cadan magaaladii Cadan qasrigii madaxtooyada ciidanka STC ee imaaraadka carabta oo taageerayo arrinta marka waxa leeyahay suurtagal waxa ah in kooxdan ay ku dhawaaqdo inay goosteen haddii aan eegno calanka wadanka Yemen madaxweynaha calanka agyaala waa calankii wadanka Yemen oo caadiga ah xitaa xuutiga ma aysan bedelin laakiin haddii aan eegno STC ayagoo calankan bay wataan waana calankii Yementa koonfureed ilaa Yemen laba noqotay dawlad koonfureed oo Cadan xarunteeda ay ahayd iyo tan waqooyiga oo Sanaa xarunteeda ay ahayd marka arrinta la yaab kale waxay noqotay STC inay calankan isticmaalayso waaye arrimo kala soo kordhay marka shalay waxa magaalada Riyaad tagay amiirka dalka Qatar wuxuuna halkaasi kula kulmay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga inkastoo aan la dhihin waxay ka wada hadleen arrimaha Yemen laakiin warar laga helayo ila kala duwan waxa la sheegayaa arrintan inay tahay arrin looga hadlayo xaaladan ka soo korortay wadanka Yemen oo inta badan ciidamada imaaraadka u taageerayay gacanta ay ku dhigeen inkastoo Qatar aysan ku lug lahayn colaadan laakiin haddana muddooyin kale wax aad isugu fiican amiirka dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga iyo amiirka Qatar inkastoo la leeyahay heshiisiyo iyo iskaashi iyo baa la galay laakiin arrintan waxay ku soo beegmaysaa iyadoo Sacuudiga ciidamo aad u fara badan uu u dirayo xuduudda uu la wadaago wadanka Yemen oo waliba ah xuduud aad u dheer waynu arki doonaa markii wixii arrimahan ku soo kordha sidoo kale barnaamijka bandhiga oo saacada kadib soo geli doona waxaan idinkugu soo gudbinaynaa warbixin faahfaahsan oo ku aadan walaaca arrintan laga qabo mas'uuliyiintii dowladda caalamku aqoonsana oo ka hadlaya khubaro military oo ka hadlaysa awoodda gobolkan inta ay xuutigu haystaan inta hadda ay la wareegeen ciidamada imaaraadka oo taageeraya STC iyo waxa mustaqbalku uu noqon doono barnaamijkaasina goordhow ayuu soo geli doonaa haddii alla idmo waa hagaag haatan waxaynu u gudbaynaa goordhow wararkii ugu dambeeyay Gaza iyo waliba Mareykanka oo ugu jira dadaal sidii kulan saddex geesood ah ay u yeelan lahaayeen Trump Netanyahu iyo madaxweynaha Masar Al-Sisi intaan u gudbin wararkaas iyo qodobo kale aynu ka hakanno qadar soo dhawaada mar kala daawadayaal waliba waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada wararka oo subaxnimadan talaadada toos idinkaga imaanaya stuudiyaha iyaga koowaad barnaamijyadeena waxaad kala socon kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka warbixino qoraal ah warar faaclooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan barta internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirna HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka waa hagaag waxa laga hadlayaa in loo gudbo wajiga labaad heshiiska xabad joojinta ciidamo caalami in la keeno Mareykanka Gaza kulan ay yeelan doonaan Trump iyo Netanyahu iyo Sisi laakiin haddana Israa'iil waxay sii wadaa duqeynta iyo dagaalka iyo weerarada aynu eegno wararkii ugu dambeeyay telefishinka Al Jazeera ayaa goor dambe oo xalay ah wuxuu baahiyay in ugu yaraan 2 qof oo ay kamid tahay haweeney 67 sano jir ah lagu dilay duqeymo Israa'iil ka geysatay dhanka waqooyi ee Mareykanka Gaza waxaana sidoo kale la sheegayaa ilaa 7 qof inay ku dhaawacmeen xero qaxooti oo teendooyin ka samaysan oo ciidamada Israa'iil ay bam ku dhufteen arrintan ayaa waxa la sheegayaa in qayb ka tahay xadgudubyada joogtada ah ee Israa'iil ay ku sameynayso heshiiska xabad joojinta sida ay sheegeen mas'uuliyiinta caafimaadka ee Mareykanka Gaza wahagaag barnaamijyadeena ugu dambeeyay waxaan idinku soo gudbinay war ku saabsan in gaar ahaan barnaamijka qubanaha ay xalay Tony Blair in laga saarayo golaha nabadda waxa loogu yeeray ee Mareykanka Gaza maamuli doona haddaba Mareykanka ayaa arrintaasi ka jawaabay iyadoo arrintan ay soo baxday saacadihii la soo dhaafay isla markaasna uu daabacay wargeyska Financial Times ayaa mas'uul Mareykan ah wuxuu sheegay arrintaas inay tahay mid aan waxba ka jirin isla markaasna marar habaabina wuxuuna sheegay in taasi u muuqanayso in Tony Blair
looga fogeynayo guddiga nabadda waxa loogu yeeray Amerika qasal laga samaynayo inkastoo qorshihii 20 qodob ee madaxweyne Trump uu hore u shaaciyay la dhamaystiri doona bishan dhamaadkeeda ayaa wararka qaarkood waxay sheegayaan in Blair laga saaray oo ra'iisul wasaarihii hore waddanka Britain inuu guddigaasi madax u noqdo laakiin Mareykanku arrintaasi way beeninayaan sidoo kale barnaamijyadan ugu dib waxaan idinku soo gudbinay war sheegaya waxaan sidoo kale qoray warbixintaasi wargeyska The Guardian ka soo baxa magaalada London oo ku aadan in Israa'iil ay basaasayso xarunta Mareykanku uu ka sameeyay gudaha Israa'iil ee loogu talagalay in la socoto arrimaha xabajujta Mareykanka Gaza barnaamijkan ka horeeyay falaqaynta ayaan idinku soo gudbinay amuurtaasi waxaana wargeysku uu sheegay in xaruntaas inta badan macluumaadka la wadaagayo Israa'iil ay xaddo oo ay xitaa Mareykanka laftigiisii ay basaasayso hadda marka Mareykanka arrintaas way beeninayaan waxay leeyihiin arrintaas waxa kama jiraan mana jirto wax Israa'iil ay samaysay oo ku aadan inay macluumaad sirdoon ay wado waa xarunta ay dhegeysanayso dadka ka shaqeynaya waa hagaag qodobka ugu dambeeya barnaamijka aynu wareegno waxaan leeyahay sida wargeyska maarif uu qorayo Israa'iil ka soo baxa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo maamulkiisa ayaa xoogga waxay saarayaan kulan inay yeeshaan Netanyahu Sisi iyo Trump inkastoo la ogsoon yahay dabayaaqada bishan inuu booqan doono Netanyahu waddanka Mareykanka isla markaasna gobolka Florida 28 bishan uu kula kulmi doono madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa haddana waxaa la sheegayaa in la filayo inta halkaasi uu joogo in la marti qaado madaxweynaha waddanka Masar Sisi shabakadda Axios ee laga leeyahay Mareykanka ayaa waxay sheegaysaa in la doonayo in heshiiska gaaska ee Masar iyo Israa'iil isku khilaafsan yihiin in la doonayo halkaas in lagu xalliyo sababtoo ah Netanyahu wuxuu doonayaa Masar inuu culays ku saaro shidaalkii gaaska ee qaadan jirtay haddii aysan aqbalin Israa'iil waxa ay doonaysaa Mareykanka Gaza Masar way diiday waxay tiri annaga ma doonayno gaas shuruud ku xiran arrinta marka xorguf bay dhalisay labada dhinac waxa kaloo arrintu ka dhalatay ama ay sii xoogaysatay kadib markii dhawaan Israa'iil ay sheegtay inay furi doonto macbarka Rafah ee la kala gudbo Masar iyo Gaza oo hal dhinac ay furi doonto macnaheedu uu yahay dadku inay baxaan oo kaliya in la ogolaanayo laakiin Masar way diiday annaga waxay yiraahdeen waxaan diyaar u nahay haddii labada dhinacba la furayo dadku inay bixi karaan ayna soo laaban karaan dad badan waxay leeyihiin arrinta shidaalka waxba kama jiraan laakiin qorshaha Israa'iil ay wadato ayaa laga wada hadlayaa baa leeyahay hadda ka hor madaxweynaha Mareykanka wuxuu soo jeediyay bishii February 1,800,000 oo reer Gaza in loo barakaciyo Jordan iyo Masar xilligaas madaxweynaha Masaarida wuu diiday inuu tago Mareykanka laakiin boqorka Jordan wuu tagay Masar marka albaabkii bay xiratay waxay tiri anaga qof noo soo gali kara oo reer Gaza ma jiro arrintaas baa laga hadli doonaa miya laakiin warbaahinta Mareykanka waxay leedahay waxa laga wada hadlayaa arrinta khilaafka ku aadan gaaska laga soo dhoofiyo Israa'iil ee Masar isticmaasho oo hadda Netanyahu uu diiday inuu cusboonaysiiyo heshiiska waynu arki doonaa arrimahaasi iyo wixii ku soo kordhay inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waana ku mahadsantihiin daawadayaal daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo